jirtaa qamar waxaan maqlay lacag buu xaday maxaa ka jira walaalay waxaa la yiri lacag buu guriga u dhacay sariirta hoosteeda u dhacay حلال يري لكن هذا على حالنا يا كي اوغادين ناغا يدور بان ما كان ناغا ويا كان waxay dheen 30,000 dollar buu dhacay anigu waxaan maqlay snaapka qayb waxa jirta Soomaali snaap la dhaho moogtihi waxay dhaheen gabadho guriga ka maqan buu lacag meel kala baxay ma fahanti kadibna wuu iska baxay magaalada iska galay kalaab buu iska galay disco buu iska galay shaqadiisii buu ku qabsaday gabadh waxa la yiri gurigii bay ka weyday ma fahan meel baa loogu sheegay inta uu tagtay gurigii bay ka weyday ma fahan meel baa loogu sheegay inta uu tagtay xabsiga dhigtay ana hadda dadku waxay lahaayeen sawirkan fiidiyoga la wareejinay xabsigu ka soo hadlaya bideen run iyo been laakiin ma garanayo ma fahan marka isagoo oo guri lagu ilaashanayo oo magafamish isagoo guri dhex jooga oo gurigaas wallahi rayaan is not easy magafaya wala naag lacag laha wala naag magafaya wala qofka haduu lacag leeyahay dalaweeye war mid kale Mrs. Mararo istar kulli baaxa wax weydiinaysa istar kulli baax sootintii lagu qabta fiideo laga duubayo wadnaha go'aan ma yarax ka sheegi kartaa war waay la gaadeen shaqadiisa hay buu qabsaday ma fahantay meel wuxuu ka yimi xorriyad ah intuu helo qaad ku cuno khamri iskaga cabo calaq iskaga cabo iskaga dhakhleeyo ma fahantay gabar milyaneer oo gacanta u soo galay gurigu dhex fadhiya dharka waxa way waa laga qaadaa waa loo dhaqaa waa loo soo ceshaa ma fahantay isagu gurigaas dhex jooga ciyaalkaas banaanka looga tagaa mar buu ciyaarsiyaa mid yahay mar waa seexiyaa mar waa u qubeeyaa labada mataanaha isaga mas'uuliyadii haysaa gabadh waa ganacsato gabadh order iyo adduun bay dhiibtaa ma fahantay jooni suldaan amiir waa jooni alaabtaas weeye marka waxa la yiri intuu adkaysigii day waqti badan buu gabadhan gurigeeda jooga ma garanaysaa de guri aadan lahayn in adeer horseyn ognahay waa dareen ku joog heer badan habeen martiin karaydin garabta xorriyad baa dareemaysaa teeda kale adaa ku watay su'aal ka dhax weydiiyay ninka in la dhaho qamar markuu leeyahay Soomaaliya Hargeysa halay $200 baa Hargeysa lagu yimaadaaye mu ilmaadeertiisu ka waayay xitaa garaxajiisu ama ciida galo ama isaaqo muxuu u dhiiwaay maxay tahay $200 Soomaali loo qaado warka ayada wuxuu sheegayo inta baashay ku lacag la isiyo ma diin deeqay naga musaadigu deeqay maxaa ka khaldan naga aamus deeqay meesha maxaa laga marray wallahi waa taageero weyn oo magaciisa iska dhabalaayo waa deeqay qaaday lacag isiyo maxay kala tahay waa isku mid dhagaysta wiilka inuu lacag xaday anigu ma aaminsan ilaahay ka baqa falanqaynta beenha ka sheegin wiilkan lacag ma deeqay fikradda dadka ku caburin adigu taaminsan tahay waa gooni aniga taydan ka hadlaya ku soco laakiin hadii beenha sheeginina ana dhihin jacayl fiiri anigu wiilka inuu lacag xaday ma aaminsan in labadooda way isku dhici karaan wiilkii gabadha way isku dhici karaan wiilkan lacag ma xadin waa nin sharaf leh waa nin fanaana waa nin Soomaali ah waa nin aqabiyaal qolka aragsan baa naga rabaa la ileeyaa walaal anoo tolkay wataan tagaya ciyaar ku tagi maayo ciidamada wataan tagaya yaa luuq laga helaa maxaa qaldan meesha yaa fadhinaya inta tolkay hagee tagaysa adoo ciidamo wataa dadka waxay jirtay xataa qasnada proof cadayn baa la hayaa waxa la yiri joodariga iyo birkinta dhexdoodu kala baxay lacagta gabadha suuqa jirta order gada oo dhiibaysa ma fahmin ugu soo dhoofay midda xataa xaqu ka dhoofa nada waa xabsi guraag oo kor ka furan magafariya waxay tiri xabsi Mareykan ku socdaan malaynaya Mareykan ka Mareykan ka iska aadmiya Nairobi buu kala yaqaan waa dhumay haduu guriga ka dagay guriga 12 biyaana ah iyo ka badan uu socday sida la sheegay gabadha inuu ku dagaal rabay gurigana wuxuu noqday accidental wax la jaran jarta kaba dagi jiray Mareykan waa bahawa Mareykan buu socday marka baasaboorku teeda kale fiideo cadeynaya inuu soo duubay saaxiib la tahay magaalada ciyaar kuma mari karaa saaxiib la tahay ka dambe ayaga xanta u soo sheegay inuu baaxiib la tahay baasaboorku yaanu xareeyay nimanka Nairobi ka adaba tiimkaas oo saaxiib la tahay ma dhaqdhaqaaqi karo xafladda xataa amar buu ku tagay amar daran adoon madow bay banaagtani wadataa ninkaan naagta inay jilcisay baan ka shakisanahay baa soo garaacaysay balaay Allah u keenay gaari uu adkaatay maafiyo adoonta maalinta gaariga gelinaysa miya diyaaradda waxay wadataa naagarada soo markin ninka waxa laga yaabaa in ninka la jilciyayba waa kana ooyay sababtoo mobilka waa la dhuumanaya horta ma aragteen guys mobilka inuu la dhuumanayo meel kula jiro
وحتى عادي isku soo laga duumayo saaray ma aragteen balaayo ordayso videoga snapkiisa seefankiisa dhan wuxuu ku tiirsan yahay dumar ma aqaana ogteeni in kale waa ragga dumarku marka ay la socdaan meel mara haday dumar garabkooda ka baxaan dhulka ka soo go'a kow markuu soo ilbaxayay gabadhan aragsan la dhaho darteed buu ku soo baxay heesuu u qaadayay isku dhadhajinta wuxuu sameeyay markii ay ka baxday aragsan way shidmatay asiga wuu damay waa aragteen nasiib markii noloshiisa ku soo biirtay hefankiisa wuxuu ku hormarin jiray nasiib markuu ku soo dardaro intaas buu fankiisa ku socday nasiib markii meeshii ka baxday wuu damay dhulku ka soo go'ay hadda markii gabadhan rayaan ku soo biirtay buu kor u soo kacay hadda rayaan ma cayrisay dhulku ka soo go'aya ayaa hooyadiisa qabriga ka soo halaaraysa u malaynaya binti baashiyo qofkan aqoobo rabaan iyo wallahi uu sheegay reerkooda dhan waa wadaado xijaabada waa weyn dadka xirta weeyaan ama reer akhrood baa wallahi habaaraya wallahi aqoobo qaba baashin su'aalan ku weydiinaya ma isleedahay ninkan bajaaj hees uma qaadin maadaama heestii xidigaha maanta way hadashay jiijo way hadashay maanta rajiinay waxay tiri anaga waxay tiri wallahi calooshii ka hadashay waxay tiri iska daa hees jacayle xitaa hees cay ah gabadheena ma soo qaadin kulahaas heesii hore iska soo duubtaa kulaha waa suuxa ilaahay baa ku dhaartay maanta saa dhawaa gar waa in la soo qaado heesii hore iska soo duubtay saa lagu caayay dhade balaayo waa lagu caayay betri hees cay xitaa ma soo qaadin kulaha ka loo soo qoray hees la'aanta ku dhacday gabadha heesta ku soo qadqaaday mid kale gabadhii aragtaanaysi macareede marka mid cirku nagay midna bada riyaan bataaj iyadaaba mu bataaj ka saara inaa markii bajaaj horta dhageysta bajaaj waxa hees loo qaadaa midna ingiriiska ka tid baasaboor xasay ka wadatay midna halkaan geesiga ku wada quudanaya wada joogeen midaan halkaan joogto muxuu ka faa'iiday ilmihiiba ku wareerisay mid buu ka baxay kii kala kaliyo ka galay uu salaayna waa siisay gabadhan ilma siisay oo madalays baan asagoo magaalada u urku urku waa baranki urku waa filan weeyaan nimanka lacag baa la siiyay ur ma jiro horta ii kaadide xilligu dhihi lahaa naagtaan uur ma laha wax mala uu sheegi lahaa waa la sixray waa ka afka la qabtay hadda marka hargeysa la geeyo sheekh qorshay loo geeyo oo la furdaamiyo dhihi rabaa waa fake hadda soo hadla waa xirka bacd iska suga ciidan loo diro maskiinka anagu waxaan leenahay ayaa ama inta hargeysa la geeyo sheekh qorshay loo geeyo dhahaa xoog baa laygu haystay atanaana libax naagay wiilku degro uu ka shaqeyn jiray jaarad buu ka ahaa ma fahamtay hada ma maskaxdii ma marigi wax soo gudbi lahaa way dhaawacday wiilku ooyinta meeshuu ka bartay ha noo sheego ma garanaysaa waa wiilka kaliya oo qayb hargeysa ooynay ilaa hargeysa maxay tahay war berbere maalin xamar ka soo laabtay intuu garowa soo maray uu islaha dhulka ka galbaa berbere lagu qabto waa ooyay hargeysa waa ku ooyay Djibouti waa ooyay wadiba yaa cayrsanaya mataqaana ciyaal koola yar yar reer Djibouti oo deenu kala xishoonay inaadeen Djibouti oo aan kala xishoon qalbiga ay dilaacay maanta waa kana Nairobi mobile kala dhuumay ninkan waa jilicsan yahay de balaayo feer yar uma adkaysan karo ninkan ragga waa la bartay wariidooro maxaa ka wariidooro sida isku dhaama war ninka soo badbaadiya hadii kale anaga noo daanaya badbaadin hadda waxaan waa gardaran tahay wuxuu dhahay Soomaali weyn calanka buluuga hoos fadhiya buu kumu dheen Somaliland ninka maxaad u dulminaysaan